Asalaamu calaykum. Waa idin salaamay saaxiibada kanaalkan ku xiran. Xilli kastoo idin tahay wacan wanaagsan. Maanta muuqaalkeenu hadduu alla idmo waxaan ku eegi doonaa habka sare lagu qaado caafimaadka kelyaha lagana hortago kelyo xanuunka. Kelyuhu waxa ay door muhiim ah ka ciyaaraan ilaalinta caafimaadka guud, iyagoo dhiigga ka sifeeya qashinka iyo dheecaannada dheeraadka ah. Waxa ay nidaamiyaan caafimaadka dhiigga, waxa ay sameeyaan unugyada dhiigga cas. Si kasta ha ahaatee, arrimo kala duwan ayaa saameyn ku yeesha caafimaadka kelyaha isla markaana keena kelyo xanuun. Waxaana arrimahaasi ka mid ah hab nololeedka xun iyo cudurrada raaga. Haddaba, muuqaalkan maanta waxaan ku falanqayn doonaa caadooyin ama dhowr sifo oo ka caawin karo inay kelyuhu ku xanuunaan aadna ka hortagto kelyo xanuunka. Haddaba, qodobkeenu koowaad wuxuu yahay cab biyo badan. Cabista biyo kugu filan waxa ay caawinaysaa in kelyuhu ay si wanaagsan u shaqeeyaan. Biyuhu waxa ay jidhka ka sifeeyaan sunta iyo qashinka. Ku dadaal inaad cabto ugu yaraan 8 ilaa 10 koob oo biyo ah maalin kasta. Qodobkeena kale wuxuu yahay ku dadaal cunno caafimaad leh. Cunno isku dheelitiran oo hodan ku ah furuudka ama khudaarta, badarka iyo borotiinka jilicsan waxay caawinayaan caafimaadka kelyaha. Iska yaree milixda, sokorta iyo cuntooyinka warshadaysan maadaama ay kordhiyaan halista kelyo xanuunka iyo cilladaha kale ee caafimaadka. Taladeena kale waxa ay tahay la soco heerka sokorta dhiigga. Heerka sokorta dhiigga ee sareeya waxa ay dhaawici karaan kelyaha. Haddii aad qabto sokorow ama macaan, waa muhiim inaad si joogto ah ula socoto heerka sokorta dhiiggaaga, isla markaana aad raacdo talada dhakhtarkaaga si aad u xakameyso sokorta. Taladeena kale waxa ay tahay maareey cadaadiska dhiigga. Cadaadiska dhiigga ee sareeya waxa uu culays saari karaa kelyaha, waxa uuna siyaadin karaa halista kelyo xanuunka. Ku dadaal hab nololeed caafimaad leh sida jimicsi joogto ah, cunno isku dheelitiran, iyo qaadashada daawooyinka lagu qoray si aan cadaadiska dhiiggaagu u dhaafin heerka dabiiciga ah. Ka fogow cabista sigaarka. Sigaarku waxa uu dhaawici karaa halbowlayaasha dhiigga, waxaana uu yareyn karaa qulqulka dhiigga ee gaaraya kelyaha, taasoo dhaawac u geysan karta kelyaha. Samee jimicsi joogto ah. Jimicsiga joogtada ahi wuxuu caawinayaa in miisaanku aanu kordhin, waxa uu yareynayaa cadaadiska dhiigga, waxa uuna wanaajinayaa shaqada guud kelyaha. Ku dadaal inaad sameyso 30 daqiiqo oo jimicsi ah maalin kasta. Maareey walwalka ama stresska. Walwalka raaga waxa uu ka qayb qaataa dhiig-karka iyo cilladaha kale ee saameeya kelyaha. Ku dadaal inaad badiso dhikriga Alle. Sidoo kale, tijaabi hababka kale ee loo adeegsado maareynta walwalka stresska sida jimicsiga neefsiga ah. Waa mahadsantihiin daawashada muuqaalkeena. Waxaan idiin rajaynayaa caafimaad. Wasalaamu calaykum.